waxa ay ku sigatay in laga qaato cunugtii yar ay xambaarsan tahay kadib markii koox sidatay gaari nuuc xaragada ay damceen in ay ka afduubtaan xilli daawo ay ku soo iibsatay farmashi xoogaa u jiray aqalka ay ka degan tahay Muqdisho. Ifraax Axmed oo ila soo xiriirtay si dhacdadan aan bulshada ula wadaago waalidiintana ugu baraarugaan ayaa iga sheekaysay sida ay ugu badbaaday iyo waxa dhex maray ragga damacsanaa in cunugta yar ay ka qaataan gabaldhicii maalintii Axadda. anigoo cunug yar iga xanuunsan oo farmashi ka keensaday baawur jidka maray markii baawurka aniga maan shaqay ilaa galabta inuu xaafado wareeganay markii maanan ka shakinin bas soo socodka markii meel oo biidgeena meesha ku taalo oo geed iyo qashimaan yaalaan bas baawur dhankeygu xagga markii u soo jaleecdo waa xasta baawurka jidka uu gudbaya bas muusan gudbin jidka uu ugu celshay markii bas muraayadu dijistay qofka wuxuu raaxay u socotaa iga bilaabay markii waxa dhahay meesha u socod maxaa ka rabtaa dhahadii bas marka wuxuu ugu dhahay cunug keen oo dhaawdid cunug ma keenaya dhahay maxaa doontaa cunug kaleed maxay tahay bas cunug dana kugu jirto dheena keentid waxdan iigu jirto malaha dhahay bas nin oo gadaal fadhiyo gacanta taagto biskoolada oo ninka u soo dhiibay biskooladan cunug marka doosh u saarnaa caloosha iga qabta cunug keen xijaabkana uu iga hay cunug keen ugu dhahay marka ma keenaya oo igu dili kartaa le bas markaas saas ninkii kale oo gadaal fadhiyo daaqada gadaal u soo fur markuu daaqada gadaal iska soo furay أنا واقصو عرض كان ماشي كيلا برف لو قدو أسوق له مامي حافظ درس كاسوا عمر كبر حالة عنو قال لي قادنو يا اللي قد فربا بس عيالك حافظ إن إيه ما ذي ويرش حين باورك عنو قادنو ويرش ده بناك صباح باورك وكل فري وبحوا waxay ii sheegtay in walwal xoogan ay dareentay oo teer iyo markii qisadan ay qabsatay ay soo wajahday xaalad cabsi ah oo hurdada u diiday وليه أساس نيدي مو بسوق المبو لكن شغله مركي إلا حل وامرقسناني إلا حل مسيحنا والله وعوالدكي waxay dhan kun jara ilmadooda la xaday markii cunuga gaalga qaadani banaanka iska geenay u dhahay Kaaha Cabdulle Maxamed oo iido ah Ifraax isla markaana ahayd qofkii ugu horeeyay ee la xiriirtay markii ay ka carartay ragga ay sheegtay in ay damacsanaayeen inay ka qaataan gabadh yar ayaa ka sheekeynaysa talaabada ay qaadeen iyo sida reerka ay noqdeen ilaa aada walwal u dareemay naxtin weyn ay ugu dhacday waan cararnay anagoo kobol aan ah gabadhii hadda u tagna meeshii alxamdulillaah rabbil caalamiin haday noo badbaado qabto alxamdulillaah rabbil caalamiin aan dhahnay gaarigiina waa arki weyn meesha uu ka carar bismillaah familka dhan xaafadda dhan waa la baxaan ku dhaasay qeyr iyo kabiir waa la carar alxamdulillaah tii gabadhii noo nabad qabta aan u tagnana alxamdulillaah rabbil caalamiin aan dhahnay ma arkin gaariga anagu ma arkin meesha kuma aanan gaarin laakiin dadku waxay dhaheen gaariga hadda meesha ku sii cararay Kaaha Cabdulle ayaa mar kale ii sheegtay in dhagaha ay ka maqli jireen caruur ayaa la xaday balse hadda dareen cabsi ay ku dhalatay markii gabadheeda ay sigatay cabsi maxaa ilmihii dugsiga la geeyna in qof weyn geedo moogiye kaligood xataa inaan u dirno oo ugu ma aamin qabno hadda waaba la maqli jiraba inay tuugadu jirto ee macnaha ay magaalada ilmaha laga gurubsaday iyo waxba la arki jiray laakiin hadda waxayba noo cadaatay annagayba nagu soo dhaltay Sooma oo annagayba na soo gashay ilmaheena in la qaato ilaahayna nooga badbaadiyo Ifraax ayaa ii sheegtay in walwalka ay dareentay mid lamid ah uu dareemay saygeeda oo xilligaas ka yimid shaqo markii uu maqlay fariinta cabsida ahayd isla markii uu cabo markuu sheegay isagana sidoo kale isla markuu shaqo meel shaqo jiro ka imaado xaafad dariska inuu shal isku soo baxeen Mariye Maxamed oo daris la Ifraax ayaa sheegtay in deegaanka ay aad u walwaleen dhacdadan waalidiinta haysta caruurta yaryarna ay cabsi la soo daristay deegaanka xaafadda wallahi cabsiya ku wada jirto ilmahooda dhan inay guryaha ku xareystaan keenana dar wax baashaala banaankana ma jirto marka ilaahay aa u toogna wixii oo cadawgan inuu ilaahay naga qabto wallahi